sheekadan mucjisada ayaa ka dhacday masjid ku yaal dalka Masar oo koox 4 qof ka kooban ay muxaadaro ku haysteen. waxaana mar kaliya uun soo hor istaagay albaabka masjidka nin daandaansan oo ka ag dhaqaaqi waayay albaabka, waxaana u kacay mid ka mid ah kooxdii. waxaana markii uu ag tagay uu ka dareemay ninkan inay ka soo urayso ur khamro oo aad u daran. wuxuuna ka hor istaagay inuu soo galo masjidka, wuxuuna u sheegay inuu horta soo qubaysto isa soo nadiifiyo. waxayna isla buuqeen kooxdii albaabka ku hortaagnayd. ninkiina waxa uu ku dooday inay tahay daruuri inuu salaad tukado. markaas kadib ayaa imaamkii oo goobta ka agdhowaa uu soo farageliyay arrinkii, iyadoo qiri isla taagan yihiin oo arrinku gacan ka hadal ku dhow yahay. waxaana imaamku qaatay go-aan geesinimo leh, wuxuuna go-aansaday in ninkan loo fuliyo dalabkiisa oo loo ogolaado inuu Allah u tukado, isagoo imaamku maamka ku hayay ninkan ay dhici karto inuu xanuuno oo khamrada iska dhaafo oo bilow fiicanba ay u noqoto. laakiinse waxaa dhici doona ayaa aad idin qiiro gelin doona. waxaana dhacay arrin wacdara oo maanka bini'aadanka ka weyn. imaamkii ayaa ninkii u kaxeeyey dhinaca weysaqaadka, wuxuuna ku caawiyey inuu isnadiifiyo, wuxuuna u hagaajiyey weysadii. waxayna isku diyaariyeen inay labadooduba isla tukadaan. waxayna bilaabeen inay salaad bilaabaan oo isla tukadaan. kadibse maxaa dhacay? iyadoo la rukuucayo ayaa ninkii cabsanaa uu soo kici waayey. waxaana imaamku markii uu salaamo naqsaday uu damcayba inuu kiciyo, isagoo u maleeyay in ninkii uu rukuucda ku seexday. laakiinse waxay ahayd salaadiisii ugu dambaysay ee dunidan uu ilaahiisa madaxa uu dhulka u dhigo. arrinka qiirada leh ayaa ah sida daqiiqada ka hor ilaah uu u garansiiyey dhimashadiisa ka hor inuu u sujuudo allaha caalamiinta abuurtay. haddaba sheekadan iyo codadka xaqiiqada ee la duubay ayaan hadda idiin soo gudbinaynaa, iyadoo marka aad daawataana aad si weyn ay idiin qiiro gelin doonto. bal sidaa ninkan cabsan haddana loo garansiiyey inuu saaca daqiiqada ka hor dhimashadiisii uu ilaahiisa markii ugu dambaysay madaxa dhulka u dhigo. يا عم وجبها انت يا عم يا عم وجبها يا عم يا عم ادخل شرب خمره وسجاير وريحته يا عم وجبت الجمع ده جمالك انت ادخل تعال بس ادخل يعني اخش وشرب خمره كده جمالك انت يا عم انت تشتري بقى شراب تشتري بقى اعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم الله يغفر يا عم ولا بيتكم ولا شاشه جمالك انت ولا الشيخ هيقول هننفذوه يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعد اعمل عالي صوت يا عم والجمع راسك جمالك انت ولو شارب الخمر اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى الروح تعالى بس شفت الباب هنا 3 مرات لا ايدك كده في الموضوع 3 مرات بعد كده ممكن 3 مرات مضمضه اسمها مضمضه. الشيخ دخل الجامع شرب خمره ولعب سجاير كان يضرب بالسجاره ليه يقف يقعد عن جنبه؟ لا صح لا صح ما تمشيش معاك يعني. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين. آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن لازم قلت لي خليه يصلي او ينام في الصلاه. لا غير الفترة يا عم مش كده يا عم. لا أكيد ما نمشي. قوم يا عم من نومك بالنوم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير